run ahaantii waa siyaasadda Soomaaliya oo maanta gashay waqti aad u cakira ayaa haddana waxa soo shacbahay khilaaf weyn oo u dhaxeeya madaxdii qaranka prime ministerka iyo madaxweynaha wardegdeg ah oo hadda soo dhacay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka carooday wasiiro taabacsan farmaajo oo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre damacsana inuu ku soo daro xukuumaddiisa haddaba maxay tahay cadowtinimada lafaha ka gashay Xasan Sheekh Maxamuud ee uu qabo farmaajo xabiib malaayiin madaxweynihii ugu daacadsanaa Soomaaliya ee abid soo mara burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya warbixintan oo faahfaahsan intaan u gudagelin xaqiiqda ayaan rabaa inaan idinka dabageeyo daawadayaal haddaad ku cusub tahay YouTube-kana xaqiiqda TV waxaan ka codsanayaa inaad subscribe inoo saarto faa'iido ayaa inoogu jirta adigana waxba ka dhibi mayso adigoo gurigaaga iska jooga oo iska raaxaysanaya ayaad subscribe inoogu qaban kartaa adigoo maadsan si xogihii ugu dambeeyay ee dunida dacaladeeda ka jira aad ula socoto halkani waa xaqiiq TV waa wehelka bulshada khilaaf xoogan ayaa soo kala dhaxgalay madaxweynaha Soomaaliya ahna hogaamiyaha Damuljadiid Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo kulan ula qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya xabiib malaayiin Cabdilaahi Farmaajo kuna heshiiyay in xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xamse lagu soo daro wasiiro taabacsan Farmaajo si loo dhiso xukuumadda midnimo qaran ah oo lagu wada qanacsan yahay Soomaaliya oo idin ay ku qanacsan tahay siyaasiyiinta ku herdamaya xilka Soomaaliyana ay ku qanacsan yihiin Farmaajo oo ka soo horjeeda Xasan Sheekh ayaa dhinaca kale wada shaqeynaa hoose la yeeshay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo uu aaminsan yahay inuu yahay nin wax badan soo kordhin kara maadaama uu yahay nin qoyar socod ah isla markaana ay isfahmi karayaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo laakiin arrinkaasi waxa maqlay Xasan Sheekh Maxamuud oo xaabada raba inuu ku shido Farmaajo waxaan arrintaasi ay abuuri karaysaa khilaaf xoog leh oo soo kala dhaxgala ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud laakiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku wargeliyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in xitaa shakhsiga Farmaajo qalbiga ka taageersan ama jecel lagu soo dari karin golaha wasiirada arrintaasi oo la yaab ku noqotay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre nacaybka iyo khilaafka gaarka ee ka dhaxeeya Farmaajo iyo Xasan Sheekh ayaa ahaa mid sanado badan soo jiray oo aan hadda soo bilaaban wuxuuna Xasan Sheekh doonayaa inuu si adag ula dagaalamo Farmaajo iyo kooxdiisa inta xafiiska uu joogo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa isagu waxa la rumaysan yahay inuu yahay madaxweynihii sagaalaad ee soo maray dalka uguna waxqabadka badnaa burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya Farmaajo ayaa waxyaabaha lagu xasuusto isla markaana dadka Soomaaliyeed shacabka oo gobol degmo iyo tuulo ku sugan ay ku amaanaan waxa kamid ah dhismaha ciidanka iyo sidoo kale in wadanku cadaawadaha ka celiyay waxaana arrinkan horay u sheegay in khilaafkan uu sii xoogeysanayo jamaahiirta nabad iyo nolol oo had iyo goor la socota dhibaatooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha markaasi qalqal gelinaya amniga dalka ee uu sameeyo Xasan Sheekh Maxamuud isagu markaasi ah amiirka Damuljadiid Xasan Sheekh ayaa habeen iyo maalin waxa uu markaasi isagu ku seexdaa sidii uu dabargoyn lahaa xabiib malaayiin Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo isagu markaasi dibadba iska dhaafay wadankana ku sugan magaalada Muqdisho markaasi doortay inuu joogo abid la iyo inta ay naftu markaasi ka dhacayso maadaama uu markaasi isagu baasaboorkii uu lahaa uu iska dhiibay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ra'iisul wasaare Xamse waxa uu ugu goodiyay hadii Farmaajo iyo sidoo kale waxyaabo markaasi la xiriira uu ka maqlo inuu xilka ka xayuubin doono oo baarlamaanka Soomaaliya uu markaasi u adeegsan doono si mooshin xilka qaadis ah loogu sameeyo maadaama ra'iisul wasaaraha uu isagu markaasi laga uriyay inuu xiriir hoose oo dhow oo wada shaqeyn uu la leeyahay xabiib malaayiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo laakiin dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ee geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan ama ay ku waramayaan hadii khilaaf uu soo kala dhaxgalo ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in wadanka Soomaaliya dawladnimadiisa ay markaasi qalqiil ay ku jirto oo ay ka faa'iideysan karayaan kooxdii hore ee nabad iyo nolol ee uu Farmaajo hormuudka u ahaa Fahad Yaasiin oo markaasi ku xigeenkiisa ahaa dadweynaha dhegeysanaya daafaha Soomaaliya dhammaan meel walba ay ka joogaan subax wanaagsan ayaan leeyahay run ahaantii waa siyaasadda Soomaaliya oo maanta gashay waqti aad u cakira ayaa haddana waxa soo shacbahay khilaaf weyn oo u dhaxeeya madaxdii qaranka prime ministerka iyo madaxweynaha taasoo constitutional crisis ah oo dastuurka awoodaha uu labadooda kala siinayo oo maaragtay iyadoo ay qeexan tahay haddana uu nin walba uu tafsiir gooni ah
uu u yeelay laakiin waxaan anigu aaminsanahay in waqtigan xaadirka oo dowladdan maaragtay kumeel gaarsiinta ay tahay tan keliya hawsha sii wadaysa ilaa prime minister cusub iyo dowlad cusub ay Soomaaliya ka in waxa wanaagsan sida suurka u dhigayo looga dambeeyo prime minister madaxweynaha waxyaabahan maaragtay aan dadweynaha dhegeysanaya daafaha Soomaaliya dhammaan meel walba ay ka joogaan wax wanaagsan ayaan leeyahay run ahaantii waa siyaasadda Soomaaliya oo maanta gashay waqti aad u cakiran ayaa haddana waxaa soo shacbaxay khilaaf weyn oo u dhaxeeya madaxdii qaranka prime ministerka iyo madaxweynaha taasoo constitutional crisis ah oo dastuurka awoodaha uu labadooda kala siinayo uu maaragtay iyadoo ay qeexan tahay haddana uu nin walbaaba uu tafsiir gooni ah uu u yeelay laakiin waxaan anigu aaminsanahay in waqtigan xaadirka oo hay'adda kaliya ee maanta sharciyan oo 101 dastuurka nambarka qodobka 103 Somali constitution uu qoraya ay tahay in dowladdan maaragtay kumeel gaarsiinta ay tahay tan keliya hawsha sii waday nabadgelyadiisa iyo ay ku socon lahayd in waxa wanaagsan sida suurka u dhigayo looga dambeeyo prime minister madaxweynaha waxyaabahan maaragtay aan dadweynaha dhegeysanaya daafaha Soomaaliya dhammaan meel walba ay ka joogaan wax wanaagsan ayaan leeyahay run ahaantii waa siyaasadda Soomaaliya oo maanta gashay waqti aad u cakiran ayaa haddana waxaa soo shacbaxay khilaaf weyn oo u dhaxeeya madaxdii qaranka prime ministerka iyo madaxweynaha taasoo constitutional crisis ah oo dastuurka awoodaha uu labadooda kala siinayo uu maaragtay iyadoo ay qeexan tahay haddana uu nin walbaaba uu tafsiir gooni ah uu u yeelay laakiin waxaan anigu aaminsanahay in waqtigan xaadirka oo hay'adda kaliya ee maanta sharciyan oo 101 dastuurka nambarka qodobka 103 Somali constitution uu qoraya ay tahay in dowladdan maaragtay marka daradeed sida ay ku socon lahayd doorashada iyo sida dalku nabadgelyadiisa iyo ay ku socon lahayd in waxa wanaagsan sida suurka u dhigayo looga dambeeyo prime minister madaxweynaha waxyaabahan maaragtay aan maanta waxaan runtii cagta saarnay isla markaana aan kaabiga u taagannahay inaan dhammaystirno hay-adaheennii aasaaska ama lafdhabarta u ahaa qarankeen mudan madaxweyne sida aan ognahay shacabka Soomaaliyeed waxay soo doorteen wakiilo qiimaysay in aan ka soo bixi karo shaqada adag ee ina hortaal maanta mudan madaxweyne waxaan ognahay ka sokow mashruucaaga tamuuxa ee aad